jaan xasan waxaan ka mid ahaa dhalinyarada reer Puntland aan weligii meel looga bixin waxaan ku bartay joogana maanta waxaa laga hadlayaa madaxweyne 5 sano aynu dooranay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalka dib ugu soo laabanaya isagoo musharaxa waqtigiisa dhamaaday oo doonaya reer Puntland inay dib u doortaan marka fikirkaygan ka dhiibanayaa fikirkaygana waxay la tahay Cabdiweli Cali Gaas Puntland intuu dib u geysan kariyo waa u geys sababta ay tahay Puntland markuu yimi Cabdiweli Cali Gaas ragga ka horeeyay meel ayay keenan wanaagsan oo rabay in laga sii qaado Cabdiweli Cali Gaas 5 sano oo Puntland soo maray waa xusuus umada Puntland ay weligood ilaaweyn xitaa hadii maanta la bedelo markasta dhagooda ka qaylinaysa waqtiga Cabdiweli dalka xukumi jiray sababta ay tahay Puntland haday noqoto ammaanka haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto waxbarashada haday noqoto goboladii ugu horeysay ama goboleedka qaaratay ayaa maanta ka hormaray Puntland oo ka fiican oo meel wanaagsan higsanaya Puntland 5 sano xukuumadda uu hogaaminaya Cabdiweli Cali Gaas maxay ahayd uu la degay markaan waxaan leeyahay maanta Puntland uma baahna 5 damo oo maxay ahayd mugda inay ku sisito waxay u baahan tahay Puntland in la badbaadiyo magacaygu waxa weeye Nadiifo Sheekh Cabdulla Maxamuud ku magac dheer maama kutubay shacabka oo dhan way magacayga way yaqaan haddana Facebook bay yaqaan kutubay waa aniga waxa weeye dalku wuxuu qabasho u baahay shacabku wuxuu qabasho u baahay masaakiin baa jidha agoon baa jidha goblan baa jira dad ay shaqaysan karin baa jira madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markii doorashadii hore inuu intaaba uu dhaliil tiri doono uu shacabka wuxuu qaban doono uu dalka wuxuu qaban doono oo dadka wuxuu qaban doono iyo soo celintii goboladii maqnaa Sool iyo Sanaag intaba waxba kama uusan qaban tan labaad waxa weeye waa musharax labaad oo hadda isu soo taagay goobta madaxweynenimada lagu dooranayo ee baarlamaanka waxa weeye horta nin walba waa nasiibkii 5 sano inuu soo hayana nasiibkiisu ku helay wuxuu dhameystirana waxa weeye wax qabadkii Maxamed Cabdiraxmaan Faroole dhameystirkeedii buu qabtay wax muuqda oo maragala oo maanta uu leeyahay waa qabta dalka iyo dadka midna kama qaban Cabdiweli Gaas wuxuu noo sheegay 5 sano ka hor inuu soo celin doono xuduudaha dalka ka maqan sida gobolka Sool iyo gobolka Sool degmooyin fara badan ka mada haddana garow waxa loo joogaa 25 kilomitir 30 kilomitir meel jira ayaa loo joogaa wuxuu noo sheegay in faataxa lagu qabsan oo faataxa lagu soo celin doonin nanka amniga taas ahayd nanka dhaqaalaha ninkani wuxuu xiray ishii kaliya ee dhaqaaluhu ka soo baxayay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiyeedka taasoo dhammaanba shacabka Puntland ka soo horjeedaan ay dhammaanba isku khilaafeen ismada dhaqanka cuqaasha iyo baarlamaankaba intaba marka waxaan leeyahay anigu 5 sano oo soo socota ninkan uma qalmo in dib loo doorto madaxweynuhu ilaahay baa inoo keenay waxana ilooma sameeyay inuu ina baabi'iyay buu ina ku dameeyay dal buusan wuxuu qaban dad buusan wuxuu qaban hadeeru wuxuu ka sii walaa meeshii sidii baa marqaabyo u wataa laba Maraykan sidii baan midhaha uga gurtaa madaxa toomo sidii baa martida caanagal ugu macsuuba bal muxuu micnaha oo ay taray malaysarkaan doorto horta ma jiro qof 5 sano intuu meel fadhiyaan cid la xisaabtamino 5 kale loogu daro Puntlandna 2 goor wax ma doorato mustaxiil bay ka tahay waayo sharci adag oo cid lagu la xisaabtama meesha kama dhisnayn qof baa 5 sano joogay wuxuu rabay u sameeyay annaga 3 sano mushaar nagala maqayay bulshadu waa baabaaday kaabayaal dhaqaalo ku haya isku tashado waxa iga sugin uu yiri saadarteed cid 10 sano aan la xisaabtayn meel fadhiyaysa ma jidho waa mustaxiil cidna ay ku naaloon Cabdiweli Cali Gaas runtii waxaan u sheegayaa xilkan waa uu ku fashilmay sidii horeba loo sheegay waxyaabii uu ballan qaaday wax suurta gal ma lahan wuxuu yiri been buu sheegay mar wuxuu yiri mardan isma soo sharaxayo haddana wuu isa soo sharaxay waxaan leeyahay Cabdiweli Cali Gaas waa uu ku fashilmay anu waxaan shaqaale dawladeed hooyana waa ahay mushaharkayga 5 bilood ma aan helin ma garatay dad kuwa iga sii liitana way jiraan marka waxaan u sheegayaa Cabdiweli Cali Gaas anu ma jeclay ma rabo iyo hadana shacabka reer Puntland inuu soo noqdo waxaan rabnaa mid umada u shaqeeyo aan isaga jeebkiisa ka shaqeysan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas maalintii la dooranayay waxada garow soo istaagay magaalo kasta iyo gobol kasta oo ka tirsan Puntland waa tagay ballanqaadadiisa ugu waaweynaa waxa ka mid ahayd oo sheegay oo dadka shacabka ka hor sheegay oo telefishinada yaala oo social media yaala dib dambe isu soo sharixi maayo haddii aan Puntland madaxweyne ka noqdo inta kale uu sameeyay waxay ahayd inuu yiri Puntland waxa gaarsiinaya hal qof iyo hal cod iyaduna kama suurtoobin maanta inuu haddana dhaho waxaan soo taagaya xilka madaxweynaha Puntland
anu waxaan aaminsanahay shacabka Puntland ma qabato noona qabato tii hore waan ka rabnaa horta oo taalla oo waadaxa oo hor taalla oo waqtigeediina ka dhamaaday marka waxaan aaminsanahay inuu soo noqon karin waxaan jecelnahay shacabka Puntland hadaan nahay inuu nagu soo noqon Cabdiweli Maxamed Cali Gaas magacaygu ayuu Faarax Maxamed madaxweynaha Cabdiweli Gaas horta ha noolaado hawlo badan baa Puntland ka soo qabtay aniga markaan qaasanta tayada ka hadlo noloshaydu waa caday waxaan rabaa horta ha noolaado waxaan ku leeyahay tan ku guuleysto doorashadan waxaan doonayaa in noloshaydan wax laga bedelo haddana aragtideeda ka hadlo waxa weeyaan waxaan doonaynaa anagu isbedel oo dalka u dhasha oo dadka u dhasha oo diinta u dhasha waxaan doonaynaa waxa weeyaan madaxweyne cusub inay doortaan baarlamaanka hadda cusub ee la doortay insha Allah waxaan rajaynaynaa oo Ilaahay ka rajaynaynaa in ay isbedelkaas uu noqdo mid noo hagaaga madaxweynaha yagii hore Cabdiweli Qadar waxaanu leenahay Ilaahay ha ku barakeeyo 5 sano dalka u soo shaqeynaysay waxa weeyaan waxaanu leenahay Ilaahay ha barakeeyo madaxweynahayagii waanu taageersanahay shalay waanu taageersanayn maantana waanu taageersanahay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isagana Ilaahay barakeeyo madaxweyne cusubna waa rabnaa waxaan u arkaa inuusan nagu soo noqon waxaanu ka baabaanay xagga dhaqaalaha waxaanu ka baabaanay xagga sharciga waxaanu ka baabaanay xagga difaaca waxaanu ka baabaanay xagga deegaanka dhan walba waa ka baabaanay been buu noo sheegay wixii hore inoogu sheegay waa ka weynay haatan 5 sano tiri saacad kuma darayno Cabdiweli Cali Gaas mid baan leeyahay Cabdiweli Cali Gaas wuxuu ku soo galay campaign-ka waxaan ahay kaabayaasha dhaqaalaha iyo daryeelka bini'aadantinimo iyo maqnaanta gobolada maqan horta dunidan iyadaaba kala dhantaalan waxba may dhameystirmaan waxbuu qabtay waxna daliil buu leeyahay qof kasto meesha imaadana shuwa daliil buu yeelanayaa laakiin Cabdiweli Cali Gaas waxaan leeyahay hadalkii maalintii aad tiri Cabdiweli wuu fashilmay taas waa fashilantay baan leeyahay oo waxay tiraahday hadii aan ku soo bixi waayo doorashadayda Mufas one man Cabdiweli wuu fashilmay taa waxaan u maleynayaa codkaas waa cod ka duuban oo ku jira midiyaha Puntland iyo midiyaha adduunka oo dhan marka shan taan dambe oo hadda sano oo dambeysay haddaanu shacabka nahay xoogaa dawladda wax ma qabana ma dhihi karno wax badan bay dawladdu qabatay way dadaashay laakiin wuxuun baanu tabaynaa hadday sicir bararka tahay haddii ay sicir barar tahay haddii ay amniga tahay haddii ay xuduudaha tahay waxyaalo badan baanu tabaynaa madaxweynaha waxaan leenahay aan ku dooranay kadib meel ku sheeg madaxweynaha waxaan leenahay aan ku dooranay doolarkii meel ku sheeg madaxweynaha waxaan leenahay aan ku dooranay diilintan meel ku sheeg madaxweynaha waxaan leenahay aan ku dooranay dambiilihii meel ku sheeg afarta hadduu ka jawaabo waa la dooranaya hadduu ka jawaabi waayo xildhibaanana ma rabaan isimana ma rabaan ummadda cafisa weydiisto anigu shakhsi ahaan marka waxaan ka qabaa rayga waxa weeyaan isbedel baa dalka u baahan yahay hadda shalama doorad waxa ka hadlay ninka leeyahay caamay oo ah madaxweyne ku-xigeenka kiisas badan buu ku soo oogay kiisaskaas oo ahaa kuwa falangaraysa oo ka dhacay Puntland uu sii daayay sida awgeed kadib boosaasoodna waa iibsaday waxa weeye musharaxnimada ka hor waxa ka horeysa in maxkamad cadaalad ah la soo taago anigu wixii fiican nuur baa la dhahaa aragtideeda haddaan dhigto Puntland maanta badbaado u baahan tahay in badbaadiye u baahan tahay qurba joogna ma rabno dal joog baan u baahanaa Cabdiweli waxa weeyaan waa wax badan buu wuxuu sheegay in aanu dibdum isu sharaxayn hadii waqtigu ka dhamaado marka waxaan leeyahay waxa weeyaan bal hadda 30 musharax baa jira bal raga cusub aan waxba maartay aan soo qaban inuu jaaniska siiyo waxa weeyaan dad badan baa waxay leeyihiin Cabdiweli waxa weeye waa ku fashilmay waxa weeyaan siyaasadii dalkana waxba kama qaban isbedel baa loo baahan yahay madaxweyne la xiiseeyo bal wax qabadkiisa la arko Cabdiweli waa la soo shirrabay 5 sano soo shirrabnay khayr Allah siiyo inuusan sharaxin bayna ku qurux badnaan lahayd oo baash xasaasiyadeedu san kor u qaadin ee halka ku daayo bal raga tirada badan aan bal mid kamid ah Allah ilaaha noo nasiibay mid ka ugu khayr badan aan ogaano bal wuxuu noo qaban karo insha Allah yaan la dooran ma rabno ma doonayno
dalkii muxuu ahaay wuu burburshay intuu joogay muxuu ahaay Soomaaliya ma rabno ma doonaynin midnimada necab ma doonayno nala talo waxa lacag qaadanaya nala talo hooyo Soomaaliya bacadkay wada fadhida way siyaasantay way hogtantay ma doonayno waxa doonayno dhalinyarada maaha ku dhammaanaya silcaya hoogaya ma doonayno ma lacag una dhaafsada ma doonayno